cabdirashiid maxamed xidig oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka dowladda Soomaaliya ahna musharax u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka Jubbaland ayaa dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka ugu baaqay inay soo farageliyaan doorashooyin kala filayeen ee ka dhacday deegaanada maamulkaasi Jubbaland. cabdirashiid maxamed xidig ayaa waxa uu sheegay in dhibaato walba oo ka dhacda deegaanada maamulka Jubbaland uu sabab u yahay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe. waxa uu sheegay guddiga badbaadada maamulka Jubbaland inay soo dhisi doonaan guddi doorashooyinkaasi oo ka shaqeeya doorashooyinka maamulka Jubbaland. waxaan mar kale ka digaynaa uguna baaqaynaa shacabka reer Jubbaland ogeysiinaynaa beesha caalamka dowladda federaalka ciidamada AMISOM iyo cid kasta oo khusayso waxa alla wixii dhibaato ah ee ka dhaca ee ku yimaada shacabka isbedel doonka ee ku yimaada murashaxiinta ee ku yimaada golaha badbaadada meel kasta oo ay joogaan mas'uuliyadeeda waxa qaadaya maamulka afduubay doorashadii qof kasta oo ka soo horjeedana doonaya inuu dilo oo xiro oo uu caburiyo oo masaafuriyo maamulka ayaa qaadi doona shacabka reer Jubbaland ee isbedel doonka waxaan ugu baaqayaa inay dhiiranaadaan rabitaankooda muujiyaan isu soo ay ka dhabeeyaan rabitaankooda oo aan lagu caburin karin maxaan ku idhaahdaa waxyaabo yaryar oo macno lahayn. dhanka kale cabdirashiid maxamed xidig musharax u taagan xilka madaxtinimo ee maamulka Jubbaland ayaa odayaasha dhaqanka maamulka Jubbaland waxa uu ugu baaqay inay beeniyaan warqadaha ka soo baxay guddiga doorashooyinka maamulkaasi Jubbaland. waxa uu sheegay guddiga isbedel doonka inay doorasho ku qaban doonaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. odayaasha dhaqanka waxaan u soo jeedinaynaa waraaqaha la idin siinayaa waxba kama jiraan, dadka aad soo xulaysaan waxba kama jiri doonaan, cidda ay doortaan waxba kama jiri doonaan. haddii alla yidhaahdo xaqiiqdu waxay tegaysaa in meel cad laysugu tago oo wax lagu doorto. hadday taasi dhici weydo mas-uuliyadda wixii ka yimaada waxaa diidan waxaa qaadaya cidda diidan in xalaal wax lagu qaybsado, in meel iftiina wax lagu qasho, isla mar ahaantaana dadkii saxda ay wax doortaan kaa ayaa qaadi doona mas-uuliyadda. waa maqlayna guddiga doorashada inay ka hadlaayeen dhaqaale la'aanta haysatay caalamku ay ka waayeen. waa sax weeye, caalamku doorasho hal nin loo abaabulayo dhaqaale kuma bixiyo. hadalka ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan loo madalsan yahay in magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ay ka dhacdo doorashada madaxtinimo ee maamulkaasi Jubbaland walow uu jiro khilaaf soo kala dhaxgalay musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimo maamulkaasi Jubbaland iyo madaxweynaha talada haya ee maamulkaasi Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe.